بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kusoo dhawaada akhyaari duruusteennii taxanaha ahayd ee ku saabsanayd barashada culuumta buxuufta. Cashirkeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay ayqoonadan ay ku qoran tahay ikhtiyaar kitaab. Markii aan soo furo macluumaadka aan ka heli karo iyo sida igu suurtagelayso anoo gudaha u gudbin inaan xog badan aan ka helo kitaabka aan raadinayo. Sida muuqata qaybta koowaad majmuucaad, tasfiya iyo saabiq horena u soo marnay. Majmuucaadka markaad joogto maxaan ka heli karaa? Kow waxaa ka heli kartaa meeshaan kore mustadiilkan u koreeya waxaa gelin kartaa qismiga aa u baahan tahay oo aadan xifdisnayn sida uu qoran yahay kalimaadkiisa qaarna aa haysid. Mathalan alxadiid oo kale wixii xadiid ku qoran yahay oo dhan wuu ku keenaa qismiga ama kitaab ha ahaado ama inter dheh kitaab waa kaas inter dheh xadiid kelmaddaas waxay ku qoran tahay oo meeshaan ku jira ayuu kuu soo qabanaa. Waa qaybta mustadiilka u sarreysa. Qaybta labaad waxay tahay waxaan ka ogaan karaa kitaab inaan maaragtay aan ku qoro hoos meesha hoose aan ku qoro. مثلا waxaan u baahanahay kitaab la majmuuc sharx almuhadab limaam annawowi raximahullah. Kitaabka waa kana ii soo baxa. Kitaabka marka inta halkaas maraayo kow waxyaaba badan aan inta ka ogaan karaa. Maxaa ka mid ah taariikhdan u dambeyso kutubta waa wafayaadkii dadkii mu'alifiinta ahaa iyo culimmadii aliftay kutubtan. Sheekh kasta waqtigu dhintay qaaliban way ku qoran tahay. Marka adoo gudaha u gudbin waa ogaan kartaa raximahumullah ajmaciin. Labo waxaa ogaan kartaa kitaabkan rasmi ma yahay oo shaamilada kitaab ka soo baxay rasmi ah oo shaamilada ay og tahay mawqica shaamilada ma yahay. Haa waa ogaan kartaa. Waxaa ku ogaanaysaa kitaabka ku dhufanaysaa meeshaan kore bidixda u sarreysa bidixda meesha u sarreysa waxaa ku qoran الكتاب صادر عن الموقع الرسمي للبرنامج. haddii aad rabto inaad hubiso qufulkaasaa kuu sheegaya. haddii aad rabtid inaad hubisid keligaa ku siinaysaa internetka haysato wuxuu ku geynaa mawqic rasmi ku geynaa waa kuu sheegayaan inuu rasmi ahayn in kale ogaana meeshaasaa ka ogaanaysaa qufulkaasaa ka ogaanaysaa. mid aan rasmi ahayn mathalan muraqam aali oo kale kasoo qabo rasmi maaha waa ku dhufto waa kana qufulkii ma saarna meeshaas. الأم للشافعي فيري رسمي وان وفي الكاس كلا صار وهكذا وان كان كتابك يعني شرح المهذب كتاب كان هدي أرى إنا مجموعة كلها بتتسان عليها نور مجموعة كوف فرنتها وكلها بتدلقيها أو باهنتها حسب ما نساء كان أقول في نساء هل مر وحي مجموعات كوف فرنحرة ساسو إحرة يا ساسو إحرة كتابك يعني المجموعة شرح المهذب وهكذا وان كرتا macluumaadka kitaabkan iyo qismiga uu hoos yimaado meeshaan ka ogaanaysaa. meeshaan u koobisanaysaa waadka aa geynaysaa saana u leedahay koobi garey hadhowta adaa kala filtaraysanayo waadka aa geysanaysaa. waa kana macluumaadka kitaabka fiqh shaafici kitaabkaas mu'alifka macluumaadka hadhowta adaa nidaamsanaya qaabka u rabtid iyo saa u rabtid adaa nidaamsanaya laakiin macluumaad aa go'aan ku qaadan kartid ayaad haysataa. waxaa kale ogaan karaa kitaabkan meesha macluumaadkaas mararka qaar ardada way ka qarsoomaan. waxaa la sameynaa meeshaas ay ku qoran tahay calaamada su'aalka idhaar ikhfaa macluumaad can alkitaab ama hadda ikhfaa macluumaad can alkitaab waa idhaar ku dhufo mar kale ku celi ku dhufo waa kaa qarsoomaysaa ku dhufo waa ku soo baxaysaa. saas waa markaa arday badanaa ka dacwoonaysa macluumaadkan markasta ima muuqanayan maxaa sameynaa meeshaas ayaa ku dhufanaysaa idhaar ama ikhfaa. waxaa kaloo aad samayn kartaa kitaabka macluumaad tafaasiil iska badan u baahan tahay kitaabka adoo gudaha aan u gelin geeska hoos bidixda u geysaysa meesha u geysaysa waxaa ku qoran bidaaqatul kitaab ku dhufo bidaaqatul kitaab kitaabka waxaa kusoo baxayo dhammaystiran insha allahu tacaala. kitaabka waa kana macluumaadka kitaabka waa kana intay ku qoran tahay bidaaqadii wataa macluumaadkada u baahan tahay. kan waxaan usoo aragnay عن الكتاب كان محو كهلا أصلاً كان كتاب كان مقعيسة مؤلف كيسة التعريف بالكتاب مركا من أجمع الكتب في الفقه الشافعي مركا معلومات كذا كيرسة كتابك وهكذا مركا أنت سؤالنا كيرسة عن الكتاب كان بدأ قضية هاد كتابك كان عن الكتاب عن المؤلف كنفس الكيسة سيرة دي سوى كوابا معلومات كيسة سيفضت أضو قدها أنقلن أنت كيرسة meeshaas ayaa ka maraajicda hataa laga soo qaatay macluumaadkiisa ayaa ka helaysaa.
kitaabka inaad meeshaan ka furtaa u baahan tahay intaa ku dhufanaysaa waxaa ku qoran ardi kaamil alkitaab wuu kuu furmaa ardi kaamil alkitaab oo kitaabka caadiga ugu furmaayo labo inta haddaa ku dhufatid meeshaan ardi kaamilka hoos waaye midigta meesha u geesaysa midka ku xiga ay ku qoran tahay alintiqaal lijadwal almu'alifiin haddaa ku dhufatid aa ku dhufano wuxuu kuu keenaa mu'alifkii kitaabkan imaam nawowi raximahullah inta kitaab uu alifay ee shaamilada ku jira ee rasmiga ah wuxuu keenaa marka maxay tahay faa'iidada ay leedahay inaan ogaado kutubtan liiskan kutubta inaan ogaado maxaa ka faa'iidaa laba shay ayaa ugu muhiimsan midda koowaad waxay tahay magaca sheekha inaad og tahay kitaab uu qoray kitaabka magaciisana ay ilowsan tahay magaca sheekha taqaanaa oo mu'alifka ah kitaabkiina ma taqaanid shaamilada inuu ku jirana waa ogta hadda kahor wax ka akhrisa ama ka qaadatay si fudud marka meeshaa dhowta kusoo raadinaysaa kitaab kutubtiisa kamid ah taqaanid ayaa soo qaadanaysaa saana usoo raadinaysaa liiskaana ka dhexlaysaa faa'iidada kale ugu muhiimsan waxay tahay taas kasii muhiimsan in right click aad tirahdid naskh qaa'imat alasmaa kaamila kadib aad geysid waadka markaa imaatid aa qoratid mu'alafaat alimaam annawowi fi almaktaba ashaamila number c besti ku dheh waa kanaa 26 kitaab oo aad ka soo qaadatay shaamilada oo mu'alafaadka imaam annawowi ah ayaa meeshaan ku yaalla marka sidaas fudud ayay kugu suurtagelaysaa inaad liiska heshid si gaaban markaa soo khulaasayno si aan ku imaano meeshan ikhtiyaar kitaabkaad dooranaysaa bidaaqat alkitaab alintiqaal lijadaawil almu'alifiin waa kana marka waa joogtaa right click ku leedahay naskh alasmaa naskh qaa'imat alasmaa kaamila. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.